وعوي ما قاله ما أنت مدحونا جبريل السماء للويمري ما أنت طريقتنا بس لقوش ما هيدي ما أنت وحلا قبل لها إلا جاجل لها بعيد وعوي أنا ما تعلق ترى لنا ما يركع عصبنا وحلنا ما لا شغلات عصبتها أنت هتلاقي قبصة يسوي حباك قبل قبل كيس كده حجوك بالنا dhawaan u bay markii dawladda hoose magaalada Boorama ciid caratuul ay ku baahisay jidkan oo Ameerika laga soo galo magaalada Boorama oo xiliyaha jid laamiga gawaaridu si sahlan ay ku mari jireen marka laga yimaado burburka wadooyinka magaalada Boorama caqabada u weyn ay wajahayaan darawaliinta gaadiidka kala duwan iyo bulshaduba waa wadooyinka xilligan dhooqada isku bedelay intii madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi soo gaarin magaalada Boorama iyo dawladda hoose magaaladu waxay wadooyinka loo aasteeyay in madaxweynuhu maro waxay ku sii shubeen ciid ay ku daboolayeen daldaloolka wadooyinka balse diitaanka raxmaadka eeba waa kuwa wadooyinka isku bedelay dhiri aan si sahlan looga talaabi karin telefishanka caalamiga Home Cable TV oo saaka booqday ayaa waxa la hadlay gaadiidleyda kala duwan ay isticmaalaan wadooyinka iyo sidoo kale bulshada kala duwan ee ku garab ganacsada wadooyinka waxaana telefishanka caalamiga Home Cable TV ay la wadaageen dhibaatooyinka ay ku qabaan wadooyinka xilligan isku bedelay dhooqada aan cabasho muujinayna waliba cabasho aad iyo aad uga muujinayna waxyeelada ciidan ay nooleedahay lagu shubay meesha iyadoo ay qolada dawladda hoose awalba aanay ku shubay laakiin ay noqotay waftigii madaxweynuhu la socday iska dhaadhicinteeda ay wadada noogu shubeen waxa aad arkaysaana uu naga haystaa marka waa in dawladda hoose shaqadeeda ay qabsataa oo xuraaf wadada gebigeega wada xuraaf bay noqotay ciidaas lagu soo tuule barkii madaxweynuhu marayna salaama dib looguma soo noqon saasa loo galay dawladda hoose weeyaan waxa soo gartay dowga ee ciidda ugu soo tuule saa u baabiyo jidkii haad kala tuu noqday marka gawaridii meel ay marto haadkii labaad uu xidhan yahay waka macalmeeradii baa lagu xidhay biyaha wada arkaysa xaafadaha horteeda soo joogaan meel laga soo baxo malo ciidan inaan deelna naga caawiyo oo si la yiraahdo maadaama ay meesha wala dhooqan noqotay maalintii madaxweynuhu yiminayay in ciid lagu soo shubay illa naga hagaajiyaan ka codsanaynaa waa iniga arkaya meel meherad looga soo talaaba ma jirto annaga dhibaatooyin baa naga haysta meelihii waa meheradii horteedii biyihii baa joogsanaya dhibaatooyin weyn baa naga haysta maayirka waxaanu leenahay in la naga qabto sidan oo la naga hagaajiyo oo la sidan wax laga bedelo meesha maayir bay leedahay madaxweyne leedahay dal maamul bay leedahay waxaanu ka codsanaynaa inay sidan wax ka bedelaan dawladda hoosena waxaan ka rajaynaynaa inay dawladdii hoose ka duwanaato maadaama maamul cusub iyo madaxweyne cusub ay heshay inay sidan wax ka bedelaan oo dalka wax u qabtaan oo dadka wax u qabtaan halkan waa halkii ugu horeysay ee dhuuntii magaalada marka magaalo la soo galo bilicdeedii sharafteedii in maanta kuma hayno oo dhibaatooyinkaas ka jira shicibkii baa ku kadeedan oo sida isku bedeshay kulay waxa weeyaan maayirka waxaan u malaynayaa intuu hagaaji lahaa bay wax ka qaribmeen marka waxaan kula talinayn maayirka bal waxaan meesha dhex yaala ee xataa xaafadihii gudaha u galay in dib looga daba tago oo aanan sidaas lagu dayn oo run ahaantii maxay hayday inta waxaan laga qaado wax hagaagsan la dhigo ayaan soo jeedin lahaa marka maayirka waxaan leenahay dambaska dariiqa noogada haddii aad wax samaynayso sidii maayiradii ka horeeyay ciid iyo jay iyo maaragtay sidii dariiqa loo sameyn jiray saxda dayactirkii caadigii dariiqa ku sameeyay waxa weeye maalin qaale maalintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu imanayay maalintii dariiqadna bas lagu shubay ma hayde maalintii wax laga qaban lahaa ee la hagaajin lahaa bahayd waxa weeye ummadda loo turan leenahay maayirka cusubna waxaan leenahay malaha shaqadaad ku cusub tahay inta aad la qabsanayso waxba ka qaban gobolka iska dhex joog baan leenahay intaasi kadib telefishanka caalamiga Home Cable TV ayaa isku dayay inuu dhibaatooyinka wadooyinka uu ka wareysto maamulka dawladda hoose magaalada Boorama balse nooma aysan suuro gelin waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV Boorama